assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, ku soo dhowaada muuqaal cusub. Faa'iidooyinka caafimaad ee laga helo mooska ama muuska. Kow, mooska waxaa ku jiro energy zaa'id ah 100 kg oo weliba ku jirto 90 chloride oo ka mid ah nooca sida fudud ee jirka ugu faa'iideysto ee loo yaqaano fructose-ka. Labo, mooska waxaa ku jiro maadooyinka sunta jirka ka yareyso antioxidants iyo macdan iyo fitamiino. Saddex, mooska waa faraqa ugu jilicsan ee ku jiro soluble fiberska, wuxuuna jilciyaa mindhicirrada wuxuuna fududeeyaa socodka caloosha. Afar, mooska waxaa ku jiro maadooyin caafimaad ee kor u qaado soo daahidda qabowga lutein, C, hexin and I, controls and lpts loo yaqaan. Shan, mooska waxaa ku badan fitamiinada loo yiraahdo vitamin B6 ama vitamin B kaasoo u fiican neerfayaasha, anemiyada, wadnaha xanuunka oo loo yaqaano CHD iyo qalalka. Lix, mooska waxaa ku jiro fitamiinad la yiraahdo vitamin C kaasoo ka hortago jirrooyinka jeermiska ka dhasha iyo sunta jirka ku sameysma. Toddobo, mooska waxaa ku jiro macdanta loo yaqaano magnesium iyo potassium, manganese and copper, kuwaasoo ah kuwa lafaha adkeeyo iyo dhiig casadka sameeyo. Dhiig caska ayuu sameeyaa, qayb weyn ayuuna ka qaataa mooska. Sideed, mooska waxaa ku jiro macdanta loo yaqaano potassium taasoo isku dheelitirta dheecaamada jirka, sidoo kale nidaamisa garaaca wadnaha iyo cadaadiska dhiigga, kana hortago saameynta qaldan ee ku yeelanayso cusbada. Halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkeennii ku saabsanaya mooska. wabilaahi towfiiq, is aragti dambe oo xiiso leh. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.